الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn ilaahay baan subxaana watacaala u mahadnaqayaa kulankan fiican inugu kulmiyey. mar labaadkana waxaan u mahadnaqayaa walaalkeen Yuusuf Shaacir iyo akhyaarta kale halkan isugu timiyey hortay hadashay. waxaan u malaynayaa hadalkii waa la dhameeyey oo talooyin fiican oo ninba inuu ka qaatay bay soo jeediyeen akhyaarta sharafta leh halkan isugu timi. waxaa quraan waan ku darayaa wuxuu yahay uun qofku ilaahay subxaana watacaala inuu raali geliyo ayaa arrinta ugu muhiimsan. bani aadamka qofna raaligelintooda ma gaadho. imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu hi rida annaasi gaayatu laa tudrak. dadkoo dhammi raalli inay kaa noqdaan waa yoolaan la gaadhi karin. qof walba cid jecel oo ammaanaysa iyo cid naceeb oo dhaleecaynaysa waa la helaya. ilaahay qofka subxaana watacaala inuu raali geliyaa waxay sabab u noqotaa in dadka intooda wanaagsan ilaahay subxaana watacaala quluubtooda u geliyo khayr iyo jacayl iyo inay raalli ka noqdaan. waxaa kaloo aad u taageerayaa hadalku yidhi macalin baaruud oo ahaa qofku inuu isagu marka koobaad tiisa eego oo waxa isagu ku jiraa dan ma u yahay mise maaha, isaga qalbigiisa ma ku degay mise kuma degana, ayaa ka horeysa dadka kale tooda inuu eego. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluq, khayr oo dhami akhlaaq wanaagu ku urursan yahay, walithmu maa xaaka fii nafsik wakarihta an yatalica calayhi nnaas. wixii qalbigaagu uu aqbali waayo ee aad dhibsato ee cidhiidh aad ka dareento, taasaabaa calaamadu ah inuu yahay wax dembi ah, dadkuna inay kugu arkaan aad dhibsato. walaalkeen cabdilkariim waxaan ku waafaqsanahay walaalaha kale oo hawshaasi aad ku wada jiri jirteen oo innagoo inoo aragnay inay yihiin dad muslimiina. arrinkaas ayuunbaynaan ku waafaqsanay, laakiin waa gaala ma lihiin oo dad muslimiina inoo aragnaa. horena waanu sheegay taas. dadkoo dhammina way khalad u ka dhacaa. qof waloo muslimana waajib saaran weeye wixii khalad uu isku ogyahay inuu ilaahay uga toobad keeno, sida ilaahay uu yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun. marka cabdikariim waxaan ku waafaqsanay inaan dagaal idinka dhex ridin iyo fitno, hadal wanaagsan. quuluu linnaasi xusna, sida ilaahay subxana watacaala uu yidhi dadka hadal wanaagsan ku dhaha oo nasteexada iyo talada fiican uun walaalaha waxa weeyaan aad siiso, laakiin dagaal iyo fitne iyo hadal inaan laydinka dhex abuurin. waxaa kaloo intaasi aan ku darayaa waxaan fanka loo yaqaano ama heesaha dee qaabka hadda ay u socdaan, heesu way noocii badan yihin. hees hawleed wax la idhaa baa jirta oo dee reer miyigeenu geela u heesaan, xoolaa marka la waraabinayaa loo heesaa. haddii midhaheedu dee aanay xumayn oo midhaheedu hadal fiican ay yihiin, dee wax xaaraan lama odhanayo. sidaasoo kale gabayga, culimmadu waxay idhaahdaan gabaygu waa hadalkoo kale, kiisa wanaagsaninoo wanaagsanya kiisa xumina wuu xun yahay. gabaynimada dee xukun kale kuma qaadanayo. laakiin heesaha maanta jira heesnimo qura xataa kuma eka, waxyaaba fara badan bay jiidanayaan. kolley dee rag galayna way nooga xogaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. ilaahay haynagu anfaco. nabigeenni maxamed ahaan aan ku sallino, allahuma salli wasalli wabaarik caleyh. waa waxyaabaha barakeeya kulamada. intaa kadib kulanka kolleyba waan inoo furi, waanaad xanfilaya inuu iska kooban yahay, waqti dambena waa joognaa. horta kulanku awalan waa ilaahay dartii, wax ka hooseeya intaa ma ogi. qodobka labaad waxa weeye walaalkeen maxamed siciid cabdi oo waxay odhan jireen la odhan jiray biike ayaa aynu
isku barbartaagaynaa go'aankii geesinimada lahaa oo qaatay ilaahay waafajiyay inuu hawshii lagu ogaa uu faraha ka qaado qodobka labaad waxa weeye duco inaynu ducayno qodobka saddexaad wixii dardaaranaya tala ah ee aynu siin karo inaynu siino horta nuxurka marka si guud loo tilmaamo waxaan filayaa intaasuun buu ku ururayaa qodobka labaad Soomaalidu waxay tiraahdaa ceel nin galay oo aan ka soo waramin nin maaha hadii ceel gunta lagu geeyo oo marka laga soo saaro waxa ka warno taado waarni u dhaaba wasku hayo ceelkiiba waruma hayo maxamed de guntu galay oo ragay isha galay isaga inoo warami doona annaga laftayadu waxay tiri gabadhii heestay haddaan idin dambiga dhacay docdayadana waa koow adna daahir kama ihid annaga laftayadu abwaanka iyo fanaanku iska ag dhow yihiin marmar baan wax samayn jiray waxaan leenahay dee waa walow anigu aanan badsan oo fanka aanan caan ku ahayn haddana kolleyba abwaan marka la yiraahdo waa laga yaabaa in lagu xusuusto wixii horena waxaan leenahay annaguna dee tooba wixii dambana in aanu ummadda dhinaca wanaagsan anigu ilaa intii sugaanta aan bilaabay ee aan xusuusto marra nabadayn bay ahayd marra sugaanta islaamiga ah ayuun baan tirinayay imikana waaba kasii xag jirtaay oo afkaaro qalloocan oo badan ayaa soo batay oo kuwaasaanu islaamka ka difaacnaa kolleyba aniga warkaygu waa kaa maxamed oo quran ma ahaynee nin kaloo isaguna jiray oo aanu isna casuunay caawa oo leeyahay cabdihani oo isaguna raggii maxamed iskuuladka ahaayeena uu naga cudur daartay waan wada hadalay oo uu naga yar cudur daartay waa jeclaysnay inuu caawa inala joogo axmed biif la yidhaahdo isaguna kaba sii horreeyey nimankan oo waxay nooga warrami doonaa kolleyba maxamed iyo shiikh ayaba inooga warramay ayaa isaguna jiray iyagana waynu jidkaa wanaagsan ay qaadeen in ilaahay u sii adkeeyo ayaynu ugu ducaynaynaa waxaan filayaa dee malaa waa badiyey anigu waa inahaasun furitaanka kulanku inuu sidaa ahaa iyo caawa uun bogaadinta aynu maxamed siciid go'aanka iyo jidka uu qaaday aynu ku bogaadinayno waana dabayl iska khayr hoos socoto oo dad badan maxamedna iyo ragga kalebana waxaan leenahay dee haddaa guurteen oo meel barwaaqa aad degteen ragga abaartii ku hadhay dee aynu u yeedhno oo u baaqno oo idinkaa dee kolleyba sii garanayo sii fara dhuudhuumane ciddii kale as leedihiin hawsha halkaa ka sii wada oo dee maxay ohan qodob tabliiqiintu tashkiilintii sameeya ilaahayna waxaynu ka baryaynaa ciddii waddo khaldan haysta inuu ka soo duwo oo jidka hanuunka uu ku soo duwo fankuna sidiisaba dee xagga diinta culimmada waa joogtaaye anigu markaan imika ka hadla xagga sugaanta taya ahaan baaban imika loo sii wadi karin wuxuu marayaa fanka Soomaalidu intii la bilaabay malaa nus qarni 60 sano meelahaas uu jiray fanka Soomaalidu maanta maalin uu ka liitaa bal waa lagu soo bilaabay afartanaadkii markii dambana heella ku xigtay markii dambana heesahan imika la yiraahdo hees ayaa ku xigtaan filayo 66 meelaha in loo bixiyay heesta ilaa inta maanta maalin uu fanka Soomaalidu ka hooseeyo oo ka liita ma jirto marka waxaan oran karaa maxamed iyo lodkiisu tay ahaan baabaanay u sii wadi karin erayada lagu heesayo maanta aniga waan yaabaaba oo waba laga baxay anagu waxaan la eegi jiray miisaan iyo qaafiyada iyo inaad wixii lama jiro iska sheekaynaya jumjumtaasu bala dhadaa iyo muusiga iyo waxaas marka taasna waxaan filayaa xagga fanku inaanu uba sii socon karin sidoo maanta yahay tayadiisu anigu furitaankaygii intaasaan ku soo gabagabeynaya maxamed baan bal horta dee waxyaabaha ku kalifay iyo intuu hamigan qabay islaha aad ka baxay bahalkan iyo bal inuu xoogaa warbixina inaga siiyo iyo fikirka iyo cid la talisa iyo inuu soo kale go'aansaday iyo bal inuu fikrad noocaasa ana siiyo ku soo dhawo maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle anigu laba kelmadood baan oranayaa xirtan karaamaysan ma sha Allah caawa la fadhiyana aad baan u salaamaya waana ku faraxsanahay dhexdooda inaan fadhiyo oo sheekhu noogu weeyay ma sha Allah Yusuf Shaacir waxaan baleynaya
si qurux badan saaxiibkay heesa badan oo lahaana waan qaadi jiray baa jirto markii ugu dambeysay midhaha isagaan ka qaadan jiray oo raggii rasaasta markuu deebuankan ka guran jirnay raggii ugu rasaasta adkaabo ahaa waan ku faraxsanahay inuu jidkaygii soo maray dadkuna way iska soo daba dhacayaan ma sha Allah waxaan leeyahay inta kalena albaabadana ku garaacayna sayfanka uga baxan oo wadada khayrka noo soo maraan aad baa u mahadsantihiin aad baan idin salaamay